kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meelaad joogtaanba waa hagaagay ku soo dhawaada warbixin aynu ku qaadaa dhigayno geerida taliyaha guud ee ciidanka Liibiya. geerida taliyaha guud ee ciidanka qaranka Liibiya oo saameyn ku leh tukriga iyo istaraatiijiyadda gobolka. geerida taliyaha guud ee ciidankaasi Liibiya Sarreeye Guuta Maxamed Cali Axmed Al-Xadaad ayaa noqonaysa mid si weyn u taabanaysa xiriirka military ee u dhexeeya dowladda midnimada qaran ee Liibiya iyo dowladda tukriga, maadaama taliyahan uu ahaa xiriiryaha ugu sarreeya labada dhinac. waxaana muhiim ah in taliyaha ciidamada qaranka Liibiya ee geeriyooday la rumaysan yahay inuu door muhiim ah ka ciyaaray taageerada Ankara ay siisa galbeedka Liibiya, gaar ahaan xilliga kala guurka iyo weliba dadaalada xasilinta amniga dalkaasi. diyaaradu la socday oo ah nooca Falcon 50 ayaa ku burburtay deegaanka Haymana ee Ankara wax yar kadib markii ay ka kacday isla goobahaasi iyo weliba magaalada Ankara. wararka ayaa sheegaya in duuliyuhu soo sheegay cilad koronto isla markaasina codsaday in si degdeg ah loo dejiyo, balse xiriirka raadiyaha uu lumay ka hor inta aanay helin fursad ay ku degto. Al-Xadaad wuxuu ka soo jeedaa magaalada Misrata, waxaana uu ka tirsanaa saraakiishii ugu firfircoonaa kacdoonkii 2011 xukunka looga tuuray Muammar al-Qaddafi, madaxweynihii hore waddanka Liibiya. waxaana uu hogaamin jiray maleeshiyaadka Al-Habuus oo ka mid ah xoogagga hubaysan ee ugu awoodda badan ee ku sugan galbeedka dalka. taageeradiisa Ankara waxay ka dhigantay haliyey istaraatiiji ah oo Ankara ay ku tiirsan tahay marka ay timaado ilaalinta saameynta ay ku leedahay gobolka. geerida lama filaanka ee taliyahan iyo saraakiisha la socday waxay dhalisay tuhno ku saabsan inay suurtagalnimo tahay in shilkani aanu ahayn keliya cilad farsamo, balse laga yaabo inuu ahaa fal qorshaysan. tanina waxay dhalisay baaqiyo loogu yeedhayo in baadhitaano dhab oo madax bannaan lagu sameeyo dhacdadan, iyadoo militariga tukriga qaarkooda ay muujinayaan dareen ah in arrintaasi laga yaabo inay leedahay dhinacyo badan oo qarsoon. Sarreeye Guuta Al-Xadaad waxa uu ahaa isbahaysiga militari ee Liibiya tukriga. geeridiisuna waxay dhalisay tuhun weyn. dhacdadana waxay saameyn ku yeelan kartaa joogitaanka tukriga ee Liibiya iyo habka ay dowladda Ankara u wajihi doonto xaaladda ammaanka ee gobolka. waxaana weli laga warsugayaa natiijada baadhitaanka si loo ogaado xaqiiqada ka dambaysa dilkaasi amase shilkaasi haleelay isaga iyo saraakiishii kale la socday. Ra'iisul Wasaaraha Liibiya oo hadlay waxa uu sheegay inay Liibiya u tahay maalin madow, isla markaasina uu ka baxay halyeey qaran. xalay goorsii horeysay Ra'iisul Wasaaruhu xaqiijiyay geerida taliyaha guud ee ciidanka qaranka Liibiya, ayaana uu sidaasi shaaciyay. waad ku mahadsantihiin daawashada warbixintan. fadlan ku soo biir bogagga kala duwan ee wariye Yaxye Nairobi.